tolkay macaano baasho way bilaabantay wataa way socotaa weli way socotaa way bilaabantay way socotaa. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. jimco wanaagsan, maalin wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey geyga Soomaaliya. qodobada degdega oo aan idiin haya waxaa qayb ka noqon doona ugaaskii guud ee beesha Ciise oo toos u galay Jabuuti, xeerka buugga Ciise oo uu wacad ku maray in lagu soo bandhigi doono Saylac, boqolaal ciidamada oo ka tirsan beesha jabhadda Ciise oo banaanka magaalada Ceelgaal qabsaday, iyo sidoo kale xogaha wararkii ugu dambeeyay ayaan ku soo gudbin doonaa. waxaan kula wadaagi doonaa ciidanka biliiska Soomaaliland oo gordho magaalada Boorama ka qabtay dad la sheegay inay u dhasheen beesha Ciise kuwaas oo dibadbax abaabulayay. waxaan ku soo gudbin doonaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo si weyn looga dareemayo deegaano hoos yimaada magaalada Ceelgaal ee xarunta gobolka Sanaag. qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan idiin faahfaahin doonaa maanta oo jimco ay soo dhawaada daawadayaal. hadday tahay markii kuugu horeysayna ku soo biri Daraja Media, muuqaalkan aad daawanaysid like saar, aragtidaadana qaybta commentiga kaga dhiibo. jimco wanaagsan. qodobkeena ugu horeeya ayaan ku bilaabayaa ugaaskii guud ee beesha Ciise ayaa ugu dambeyn toos u galay magaalada Jabuuti ee caasimadda waddanka Jabuuti. xeer ilaalinta guud ee waddanka Jabuutina waxay sheegeen inay si weyn u soo dhaweynayaan ugaaska, sidaas lamida ugaaska oo cod u reebay salaadiinta ka hooseysa ee beesha dhaqanka xeer Ciise. waxay tilmaameen in buugga xeerka Ciise la soo bandhigi doono, waliba Saylac lagu soo bandhigi doono. ugaasku matala iyo tusaale iyo hub ayuu u doontay waddanka Jabuuti. maxay tahay sababta ka dambaysa? xog dhammaystiran ayaan idiin hayaa. sida aan hore idinkugu sheegay, dad badanna ay rumaysan waayeen, Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha waddanka Jabuuti ayaa garab iyo gaashaanba hadda waxa uu siinayaa beesha Ciise ee degta dalka Jabuuti iyo guud ahaanba deegaanada hoos yimaada. ugaaska guud ee beesha Ciise ayaa la soo warinayaa inuu toos u galay waddanka Jabuuti, isagoo sheegay intan ay doqonnimo ku tahay cid walba oo loo arko in ay markaasi ku lug leeyihiin ficilo foolfool xun oo ka dhacay magaalada Boorama. ugaaska guud ee beesha Ciise waxaa la sheegay in uu gaari ka raacay magaalada Saylac, kadibna uu tegay xadka Itoobiya ee dowlad deegaanka, kadibna uu ka sii tegay oo tareen halkaas uu ka raacay. Ismaaciil Cumar Geelle ayaa la sheegay inuu dhowaan toos ula hadlay ugaaska, isagoo sheegay bal inuu yimaado Jabuuti si la iskaga warsado xaaladaha jira, isla markaana wada hadal iyo wada xaajood loogu dhameeyo wax walba oo la isku hayo. saraakiil sarsare oo ka tirsan beesha Ciisena goordhow waxay ii sheegeen in dhammaan qodobo waaweyn oo laga hadlay la isku afgaran waayay oo ay ku saabsanaayeen halkee ayaa lagu soo bandhigayaa xeerka buugga Ciise, sideese loo soo bandhigayaa. xogta aan helnay waxa ay tilmaamaysaa in toddobaadkii la soo dhaafay si weyn loo dareemay dhaqdhaqaaqyada iyo culeysyada ka imaanaya Jabuuti iyo sidoo kale Somaliland, kuwaas oo raba in xeerka buugga Ciise la soo bandhigo. inkastoo Cabdiraxmaan Cirro uu dhowaan aqbalay in xeerka buugga Ciise la soo bandhigo oo dadkaasi xaq iyo xaquuq iyo dastuurka u siinayo in afkaarahooda ay soo bandhigaan, haddana beesha taagta daran ee Samaroon ayaa abaabushay dibadbaxyo, kadibna waxay madaxa isu geliyeen qabiiladii. taasina waxay keentay in xaaladdu ay faraha ka baxdo. dhowr xubnood oo sarsaro oo saraakiil ah oo aan qaarkood la hadlay ayaa waxay ii sheegeen in ay layaab iyo cajiib ku noqotay markii ugaaskii guud ee beesha Ciise uu ka baxay Somaliland. taas marna ma uusan filayn Cabdiraxmaan Cirro oo wuxuu xoog, xeelad iyo dhaqaale ku bixiyey sidii ugaaska guud uusan uga bixi lahayn waddanka Somaliland. taa beddelkeedana Hargeysa intuu u yimaado wixii wada hadal iyo wada xaajood ah miiska hoostiisa la iskugu yimaado, laakiin taasi dabcan waa ay socon weyday oo waa ay shaqayn weyday. dhowr xubnood oo sarsaro oo Somaliland ah qaarkood oo aan la hadlay oo waliba wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ka tirsan waxay ii sheegeen inaysan xilligan rumaysnayn in ficil walba oo ka imaanaya dhinaca Somaliland uu run ka yahay. haddii Somaliland uu run ka yahay, maxay horey ugu diiday in ay xeerka buugga Ciise soo bandhigno? markii horeba waa ay ogolaayeen. hadda waxaa la rabaa in la isku keeno Samaroonka iyo Ciisaha si ay u wada hadlaan oo wada xaajoodka miiska geedka hoostiisa la isugu dhameeyo, laakiin taas waxaa diiday oo maya yiri ugaaska guud ee beesha Ciise, isagoo sheegay in xoog iyo xeelad xeerka buugga Ciise la soo bandhigi doono.
suldaanka guud ee beesha Samaroon isna meel halkaana ayuu ka booteenayaa oo wuxuu leeyahay haddii tallaabo xaggayaga loo soo qaado waxaa dhici doona wax aan la mahadin taas oo dabcan xaaladda dab kale ku sii shiday marka loo eego xaajooyinkii awalba aan wanaagsaneyn ee ka jiray geyga Soomaaliya gaar ahaana ciisaha iyo sidoo kale Samaroonka beesha Gudubirsi laftirkeedu dulmi weyn ayay kula kacday beesha Ciise waxayna ahayd in ixtiraamka iyo dulqaadka iyo walaaltinimada la dhowro ayuu yiri mid ka mid ah salaadiinta beesha Ciise oo ka hadlayay magaalada Saylac waxaa ku sii qulqulaya odayaal dhaqameed u dhashay beesha Ciise kuwaas oo raba in xeerka buuga Ciise la soo bandhigo halka Somaliland ay rabto in laga hortago rabshado ka dhici kara magaalada Boorame oo dhiig badan uu ku daadan karo waxaana xogta iyo macluumaadka la helayahay ay tilmaamaysaa in tani ay noqon doonto falsafadii ugu dambeysay ee la doonayo in la isku keeno Ciisaha iyo sidoo kale Samaroonka haddii dabcan maanta is hor fariistaan ugaaska guud ee beesha Ciise iyo suldaanka guud ee beesha Gudubirsi maxay ka wada hadli karaan xeerkii buuga Ciise in la soo bandhigo ugaasku waa uu ku adkeysanaya waa ka Ciise midka Samaroonna wuxuu leeyahay war xeer wax la yiraahdo ma jiro deegaanka waa la wada dagaa si walaaltinimo ah oo odaytinimo arrimahan uga wada shaqeyno dabcan waana waxa la isku khilaafsan yahay ee hadda xaaladda dabka ku sii shiday sida ay tilmaamayaan xogaha iyo wararkan heleno khubarada arrimaha la socota waxay leeyihiin Ciisaha iyo sidoo kale Gudubirsu waa inay si degdeg ah horta xal u gaaraan oo wada deganaanshaha iyo walaaltinimada la ilaaliyo magaalada la yiraahdo Boorame Ciisa ku badan mise waxa ku badan Samaroon bal aragtidaada qaybta commentiga igu reeb magaalada Saylac ma waxa ku badan Ciisaha mise waxa ku badan Gudubirsaha bal aragtidaada qaybta commentiga igu reeb laakiin xogtan helay waxay tilmaamaysaa in Ismaaciil Cumar Geelle uu sheegay haddii la aqbali waayo in xeerka buuga Ciise la soo bandhigo in tallaabooyin military la qaadi doono beesha taagta daran ee Samaroonna cagta la marin doono taas oo la sheegay in ay tahay waxa ugu weyn oo dabcan ay ka cararayaan ciidanka Somaliland kaasi oo laga cabsi qabo isku dhacyadu inay sababi karaan dhimasho iyo dhaawac fara badan oo dhiig badan uu ku daato haddaba xogta la helayo sidoo kale waxay tilmaamaysaa haddii xeerka buuga Ciise mar kale dib loo dhigo Ismaaciil Cumar Geelle warkiisu waa uu cad yahay oo tallaabooyin ayuu qaadi doonaa laakiin waynu arki doonaa tallaabooyinkaasi bal waxay noqdaan qodobkeena kale ayaan eegaynaa Boorama maanta Jimcaha ciidanka Booliiska Somaliland ayaa Boorama waxay ka qabteen dad la sheegay inay u dhasheen beesha Ciise ilaa 3 oday dhaqameed oo beesha Ciise ka soo jeeda ayaa la soo warinayaa in goordhow xabsiga la dhigay kuwaas oo xogta la helayahay ay tilmaamayso in ay ku lug lahaayeen ficilo foolfool xun oo ka dhacay magaalada Boorama iyo abaabulka qabiilka daga halkaasi ee beesha Ciise oo ay rabaan in iyana markooda dibadbax ay dhigaan odayaasha la xirxiray waxaa la sheegay inay si toos ah ula shaqeynayeen ugaaska guud ee beesha Ciise oo isagu diidan nabadda magaalada Boorama waxaa xogta la helayahay ay tilmaamaysaa in laga cabsi qabo in sidaas la mid ah la beegsado qabaa'ilka beesha Ciise jufooyinkooda hoose dabcan xariga maanta oo Jimcaha loo geystay odayaashaasi ayay dad badan aaminsan yihiin inay xaaladda uga sii dari karto isla markaana dab kale ay ku sii shidi karto haddii aan si degdeg ah xal looga helin sargaal soo ka tirsan ciidanka Booliiska Somaliland ayaa goordhow wuxuu ii sheegay in ay caad ula yaaban yihiin ficilada odayaashu ay ku kaceen yacni guryaha inta ay tagaan ayay dadka u sheegayaan ereyo aan habbooneyn kuwaasoo la sheegay inay xaaladda dab kale ku sii shidi karto sidaas si lamid ah waxay ku lahaayeen dadka rayidka ah waa inaad kacdaan waa inaad is abaabushaan waa inaad xaqiina soo dhacsataan iyo ereyo kale kuwaasoo la sheegay inay xaaladda meel kale ku sii ridayso sidaas si lamid ah toddobaadyadii la soo dhaafay si weyn ayaa loo dareemay in ciidanka beesha waa ciidanka Somaliland ay heegan buuxa ku jiraan kuwaasoo ka cabsi qaba haddii ay magaalada u fasaxaan odayaasha oo shirarka jira in magaalada ay ku qabsadaan inay wax weyn isbedeli doonaan laba sargaal oo ka tirsan ciidanka Booliiska Somaliland oo qaabilsan magaalada Boorama ayaa goordhow ii xaqiijiyay in ragga la xiray baaritaan uu ku socdo oo aan la dhihi karin waa rag ku lug leh ficiladii ka dhacay Boorama
laakiin telefoonadooda iyo xogtooda marka la raadiyey oo la baaray waxaa la ogaaday in raggan ay ahaayeen kuwii ku lugta ahaa mudaharaadyadii dhiigga badan uu ku daatay ee ka dhacay magaalada Boorama iyo in sidaas si lamida ay abaabulayeen mudaharaadyo kale taas oo la sheegay inay xaaladda dab kale sii gelinayso si walbaba ha ahaatee dadka arrimahan la socda ayaa aaminsan in beesha Gudubirsi ay sidaas si lamida qaadayso tallaabooyin dheeraad ah oo ay doonayso inay uga hortagto beesha Ciise taas oo la sheegay inaysan xaq iyo xuquuq toona u lahayn inay ka hortagto ficiladaasi maadaama marba marka ka dambeeya la arkayo isku dhacyo ciidan haddii aan xal degdeg loo helin dhammaan qodobadii aan soo carabaabay Somaliland ayaa xilligan looga fadhiya gaar ahaan Cabdiraxmaan Ciro inuu isku keeno Gudubirsaha iyo Ciisaha si wada hadal iyo wada xaajood xaaladda loogu dhameeyo laakiin haddii aan xaaladan la qaboojin dad badan waxay aaminsan yihiin inay xaaladdu meel kale isku rogi doonto gudaha saaxiibayaal wararkeeni maanta oo Jimcaha waa naga intaas amaana Allah